السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبهذا أقون يهن أكاديمي يا برشادة أقونت dhegeystayaal ama daawadayaal halkan waxaan kaga soo gudbinaynaa casharkeena afraad ee Ingiriiska maadada Ingiriiska maantana casharkeena wuxuu ku saabsanaan doonaa singular iyo plural and plural waxaa dhegeystayaal halkani waa aqoon-yahan academy oo aad uga barateen inaad ka heshaan waxbarasho free ah sida English, Maths, Arabic. طبعا hadda waxaan ku dhex jirnaa maadadeenii Englishka ahayd oo baryahan baa noo soo socotay halkaas ayaa markaa waxaanu soo baranay pronouns-ka haddana inkastoo pronouns-ka aan ku laaban doono waxaanu halkan ku qaadan doonaa singular iyo plural waxyaalaha ay yihiin nouns-yada maadaama markaas aan soo baranay nouns-ku wuxuu noqon karaa mid keligii u taagan wuxuu noqon karaa sidoo kale mid plural ah oo badan saa daraadeed sida looga dhigo singular iyo plural ayaanu halkan kaga soo jeedinaynaa. Singular horta waa maxay? Singular waa form of a noun waa qayb waa noun nooc ama form noun weeyaan that indicates kaas oo tusaya kaasoo tusinaya one person hal shay buu tusinayaa or wuxuu tusinayaa things hal shay ama hal place. Pluralna waa maxay? Pluralna waa lidkiisa pluralna waa lidkiisa pluralna waxa weeyaan refers to many people or more than one. wuxuu wax ka sheegaa wax halka badan. haddaba nouniska singular iyo plural iyo loo qaybiyo ayaa waxaa loo qaybiyaa waxyaalaha pluralka ah waxaa loo qaybiyaa labo ama nouniska laba loo qaybiyaa haddana sidoo kale nounisku waxay u qaybsamaan laba qaybood oo ah countable qayb la tirin karo iyo qayb ah uncountable haddaba countable-ku waa maxay? Countable-ku waa wixii la tirin karaa haddaba singularku ama qaybtaas countable-ka ah ee countable noun ah waa ereygaas waxaa la tirin karo. Countable noun-ka wuxuu leeyahay plural form iyo singular form iyo plural form buu leeyahay labadaas buu isku darsadaa singular and plural form labadaas buu isku darsadaa marka haddii shaygu uu yahay countable macnaha waxay ka dhigan tahay singular form uu leeyahay plural formna uu leeyahay. maxaa kamid ah shaygaas? waxaa kamid ah people dadku people waa plural
waana countable waana la tirin karaa. laakiin sidoo kale singular form buu lahaan karaa oo ah man, qof. people-na waa dad. waxaa kaloo ka mid ah cow, soco. singular buu lahaan karaa oo waa la tirin karaa, maadaama la tirin karo singular form buu yeelan karaa oo ah cow, hal sac. hadduu shaygu yahay non countable oo uu yahay non countable karo iyo an looma adeegsan karo. haddii uncountable nounku uu yahay nounku hadduu yahay uncountable iyo an looma adeegsan karo. sida mathalan hunger, gaajo. hunger ma oran kartid, hunger. water oo kale, water ma oran kartid maadaama uu yahay uncountable uu yahay qaab kale ayuu isu bedelayaa. uncountable nouns marka ereyadaas weeyaan looma adeegsan karo marka ereyadaas si looga dhigo plural ama looga dhigo singular. sidaas ayay waxay ku yihiin singular. pluralka waxaa loo dhigaa dhowr qaybood baa lagu sameeyaa. qaybta koowaad s inaad ku dirtid xarafkii gadaashiisa inaad s kaga dirtid, sida cow markaad tiraahdo oo kale sac baa gadaal waxaa kaga daraysa cow. camel oo kale waxaa gadaal kaga daraysa camels. saas oo kale. iyo sidoo kale inaad gadaal kaga dartid es inaad gadaal kaga dartid, sida bas, basas baa tiri marka basis. halkaas waxaa ka daraysa es baa kaga daraysaa, saas oo kale. waxaa kale ka mid ah fox. fox waa dawaco, foxes baa oranaysa, foxes. waxaa pluralka sidoo kale lagu sameeyaa iyadoo gadaal laga daray xarafka hadduu xarafka u dambeeyo y waxaa gadaal laga darayaa ies, sida city. marka plural ka dhigaysid waa cities, sida lady waxaa gadaal kaga daraysaa ladies. sidoo kale efta haddii f u dambeyso eftaas ayaa waxaa loo bedelaa ves, sida leaf waa caleen, leaves. siyaabahaas iyo siyaabo kala duwan ayay isu bedelaan.